maxaad samaynaysaa yahuuda waa id xanuunjisay cayaar maashe waaye kan aabe maxaa gees isku dhige aabbahaaga makuu dhowo u kheeli aabe yuusuf aawe abbihii ku fahmaysi hadda ku caawinoba aawe aabe naga tag annaga jacayl ma banno khawaadogeena saas maahino aabbahayna oo israa'iil ahaa jacaylkiisa dhan adaa ku siiyey maxaad ii ciqaabaysiin dembi maashay gali dembi maa shay galayaa xaq miyaa ana hoos noo dhigtid inaa noola noco sababtaada waaye waa ku dilaynaa khabri aan ku geehaynaa anagoo nahay awlaaddii nebi yacquub adiga maanta maanagu kormaraysaa maanta kaligaada aad tahay aawi waalidkaada oo ku jeclaay dhibtiisa ku saari jiray ii sheeg aawi waalidkaaga ii sheeg waxaa maqlaynaa triyaad aragtay sax maahino aawi dayaxdii bishii ku sujuudayaan horii aad ku aragtay يعقوب محاول دويشان إمادي وعجيبك إيه ما أوغي لازم wax cajiib lee dhacaya umaleynaa aniga دويشان أما ولي ما أركن عجيب واي بواي صبح نود قلت أنقلني ويا بني صبح ma maqashay maxaa maqashay ad dabeesha oo soo raacooyo cod dheer oo leh abii aniga laakiin wax ma maqlooy be cajiib sidee u maqlinin
aabe intay aadeen waxaa aadeen baladka yuusufaa soo raadooyin maxaa samayn kartaa hadda kabahaaga quruxda badnaa maxaa googooyey dharkaada dhulka maad ku lablabtay oo nadiifka ahaa waxaad tahay qof korkiisa bus ah weli waxaa kuu dhiman yaa ku gaari dheesha haddilay bilaaw tahay wiilka agoonta ahow wejigeena fiiri si inuu rooyo adigana wejigaada fiiri nebi yaa noqonaa hadda adigaa mase anaga dadka yaa usjuudaa hadda adigaa mise anaga aabe yuusuf mala waaysan yahay yuusuf walaalihiisaa duurka u raacay maxaad uga ogolaatay inaa raaco yuusuf mar badanaanu dhahay walaalahaaga araacin seed uga ogolaatay inaas raaco gabadhayd ha cabsanin asagaa iigu dalbaday inuu raaco walaalihiisa oo nala soo dheeleelo yuusuf miyaanan jecleen miyaanan ka welweleenin inaan jeclahay shaki ma ku jiro walaalahaaga ayaa mar walba igu soo celcelinaayeen hana raaco muddo dheer ma u ogolaahaynin inuu raaco walaalihiisa caadi ma ihii cabsi ay gashay markii maqli yuusuf waa baxay waxaan arkay riyo oo cabsi badan oo yuusuf ku jiro meel mugdi oona oonaayo waxaa la yaabanahay ilmaheega yuusuf maxaa xasd ugu naqaayaan ma sheegi kara arrintaas aniga maanta carada yaa lagu duugaa adigaa mise anaga wacod dayaxyaalkii oo adiga kuu sujuudi jireen hay celinin laabi hay celinin hawartiistaa ka dawageynaa kan maxaasaan u yeelay yahuuda heshiiskaan saan ma ahaan waxaa rabaa inaa arrintaan soo afjaro makaa yeelaayo inasaan ad yeeshid yuusuf inaad dishid ogolkeyga laawi dhaaf wixii raba sameeyo faraha ka qaad yahuuda asaga intii dilin horta aniga idil haddii kale arrintaan waa sheegaa yuusuf intii dilin horta anigaa ku dilaa yuusuf tacbaan waaye laawi waa notaala aniga iyo adiga waaye maalin ayaad ku shalaayi doontaa walaalkeyga yuusuf ilaahay mana cafinaayo aniga ma ogayn arrinta inaan saas isku beddelaayo beentay maahin ii aamin run aan kuu sheegoyaa ma waxaa idinku waajiba inaad dishaan ambiyada awlaadoodii oo ambiyo ah ma naftaa dhaafsinaysiin laakiin aniga ma ogeen inaa walaalaheyga gacantooda igu dilaayaan annaga heshiiskeena dil ma ahaan hal sac ka hor adoogay waa isoo macsalaamay madaxa ayaa igu soo dhunkaday waa isoo macsalaameeyey yahuuda waxay soo saari damaarka korkiisa laakiin sir ayaa u duugnay asiga iyo walaalheyga kale ii sheeg wiilkaan maxaas kuu dhahooyaa waxba waa inaan ku celino guriga adiga waad riyoonaysaa makaa yeelaayay in guriga loo celiyo xataa haddii ku go'aansatiin hahey waa amarkayga ma maqasho wixii dhahooyin waxaa waajib igu ah hadda waa inaa xal aan keenaa intii kuwaan ku dilin
tartiiba walaalahey waxaan sii haynaa dadka safarka inta u soo maraan sii meel dheer u geeyaan akhligal maahin inaa cunug aan siino qof jidka maraayo waa la shakiha haddii aan fadhiisino buur dadka jidka maraayaan sidii ay u qaataan ama sigeed korkiisa aan saaraynaa meel ceel ku yaalo aan raadino meesha aan fadhiisino waxaa laga yaabaa inaan arkaan dadka ceelka biyaha ka qaadahayaan ceel oo biyo waxaan kasaa ceel meeshaan ku dhow reer xijaas mar walba ceelkaas ayaa biyo ku cawaan haddii yuusuf meeshaas aan geyno reer xijaas waa qaadahayaan okay waa ra'yi fiican ina keena jaad bax eryaalka soo fiiri aabe goormuu soo noqonaa yuusuf ha cabsanin gabadhaydi wakhtiga hadda lee waaye maalinka hor waxaan arkay yahuuda inuu tumurawi yuusuf waxaa ka celiyay laawi see caman yuusuf wax qalad amuu sameeyey maya aabe waxaa diiday in ugu sheekeeyo walaalahiisa riyadii arkay anaa u dhahay qof ha u sheegin riyada maxaa dhacay see wax u jiraa waxaad dhahdeen ceelka inta lee waaye maxaa waaye saas dhan u dheer yahay yuusuf inaa ceelka ka soo baxo maa rabtaa oo arrinta inaan u sheego dadka jidka soo maraayaan kabacdi guriga loo soo celiyo yuusuf meeshuu waddama ka soo naqi karo waa soo gaarnay xagga waaye ceelka geedkaas agtiisii waaye ceelka filimkan waxaa laga turjumay stuudio saafi oo ku yaalo dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada baadaba